فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع دورتو العليال وموضوع رنتي أن كليدنه أو رنتي لبعضه دن امتحان ودن يكوهز جيران وحانا ويان يريسيغا أما ديالسيغا أن ديالسانين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو القرآن كحوشة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس بالله سبحانه وتعالى. أما أنه بني آدم وأن قلوبتنا اسكتي لسنتهاي وآدي ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أي إلهي سبحانه وتعالى بني آدم ضعيفا أنها في نفس الوقت آد بارودي بدنها. إلهي هنوفو ذيه إلهي حقها نتسو إلهي سبحانه وتعالى آياتك هذا، ولكن آخرنا وحاكم إذا إنه نوسي شيء دون وحي يوم القيامة دعا من فضل الله بينكم التاين. إلهي سبحانه وتعالى ست فرتران وديتيلس النوغ شيكي وحي يوم القيامة دعي دونه وحاس إلهي كما خصبنا إنه نوشيغ، إنما هذا إلهي وحو نوشيغ يا وكرمك إلهي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى أدون كانوا دنبو نو أبوري رسل شاس كالدوان أو خير كبدنبو نوسو دري كتب وذا قيم نوسو دري. كل هذا إن إلهي سبحانه وتعالى جد كانوا تسوسي عن أدون كان كبد بعدنو آخرين النار تكبد بعدنو. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق. إلهي بلنكيسا waa xaq weey. A very statement haddii oo si sahlan oo fudud loo qaato waxay taafiir ku yeelanayso male, laakiin marka ka fakartid xisaabaadkaaga dhan baa dib ugu laabanaysa. waagi hore waxa maqli jirnay anagoo dhalinyaro mararka qaar kood waxa la raaci jiray janaasada, markaas waxa jiri jiray waxa la dhaho talqiinta waa taqaana wallahi raxmal ku yaqaan. talqiinta waxa weeye markii qofka maaragtay qabriga la dhigo dad waxa jiri jiray waagi hore professional oo inta la keeno meesha maaragtay ka khudbeeya oo yani waxay meedkay la sii balamayaan haddii uu su'aalaha u yimaadaan si ay u jawaabi lahaa. talqiin baa la yiraahdaa. marka waa yaryarayna waxyaalaha ay ku soo celcelin jireen dadkaas waxa kamid ah inuu oran jiray sheekha in al-mawt haqqun wal qiyamatu haqqun. anaga runtii waagi hore iskuulka caraf baa dhigan jirnay, laakiin macna ma noo sameyn jirnay arrimahaas. imisa hadda halkan joogna inta atoo joogna imisa qof baa janaaso u raacay aan anaga ka soo laaban. one day waxa laga yaabaa adigina in lagu wado oo dad kale kugu tukadaan. waxaa marka kamid ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadaladiisa yaa ayuha الناس inna wa'da Allahi haqqun. ilaahay ballankiisa yaboohiisa waa dhab waay. maanta nin saaxiibkaayo oo aad ku taqiina inuu run badan sheego markuu hadal yiraahdo soo uma qaadanaysa inuu hadalka biyo kama dhibcaan yahay, waa u qaadanaysa. fama baaluka Allah subhanahu wa ta'ala markuu yiraahdo inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhaya. nolosha ku dagmina. North America markii la sii joogana waa ka sii darantay. marka wadamadeena muslimiinta la jooga ma sha Allah meel masjid waxba ku arkaysaa, laakiin halka kan shaqada dhibtu waxay ka timid shaqada 9 to 5 macna maalinkii oo dhan baa shaqadu qaadatay. saacadii 2 saac ka horna waa isu diyaarin 8 hoursna waa shaqayn, saacadii 2 saac kalena waa maaragtay waa winding down bay yiraahdaa. inta aad dharka iska bixinayso wax cunaysid maalinkii oo dhan waa tagay. saasa marka waxa leedahay oo kale waqtigu halkan dhaqso badana, laakiin wadankii marka tagtay ama carabaha marka tagtay waqtigu waa very slow. waxa kamid ah aayadaha quraanka oo aanu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay dhahan out of his courtesy yani min fadlihi ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala nuxsuusinaya aaya wara aaya nabi wara nabi ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum لكاتبين لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. This is what digniin oo ilaahay noo digayo inaan halkan adduunka intaan joogno aan ku sii talagalno in ay jiri doonaan
يوم الحساب waxaa kaloo jirta walaalayaal bani aadamka dabeecadiisa waxaa kamid ah wax yar kadib markuu mesela ilaahay caafimaad siiyo wuu ilaawaa inuu jiran karo shaqo fiican buu hela wuu ilaawaa inay jiraan dad shaqo la'aan arrimihiisa oo hagaagay wuxuu u maleynayaa inuu sida tan ku noolaan doono ilaa yawm al-qiyaama. We need to open up our eyes indhahana inaan furno u baahno. يا أيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله إذنك إلهي أباهن إلهي وحد أباهنتهن يعني إلهي وحد أباهن في كل النفس أنت exhaling inhaling كاسمين هل مرة دي الاستاجيوة دن وحد أباهن أرمها ولا ليا حسوس ولا ليا الحمد لله ربنا أكرمك شاقو كسية عرب كسية قرب كسية معني هذا ما هي أساس وحل بهانا يعني هلو تمكي صار لقو قفتو حالة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت مركا يعني حسوسين تسانو كلام وحسو حسوسين ولا ليان وحي أبا هانتا أرمها سوكالينان آدو أوسي مارتي أوسي دون دلالو سوفتو أنك إنو فائدين إيسا وحاون بهانا إلهي سبحانه وتعالى إنان قدرين تيسي قدرينو دور آيات بقى وحكوا بلودان وما قدر الله حق قدره ما أين قدرين إلهي سبحانه وتعالى قدرين ربا والأرض جميعا قبضته في سورة الزمر والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يعني أنت يعني هو يوار مركز إلهي سبحانه وتعالى قدرين ما حد اسمه الدين يوم القيامة إلهي سبحانه وتعالى أحداث تذبح النوغشة كين ياسي تففترن سبتا وحنا أكتن غيب كا si aan ugu sii talagalno oo aan sii diyaarino oo hadhowto aan halkaan u la nimaano acmaal nacanfacaysa insha Allah fi yawm al-qiyamah waxa kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa inuu maanta anbiya kala duwan noo soo diray inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala istaariifinayo آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وأعظم آية في القرآن وتعريف انت الله كم التاي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى صفات كي سكو شيغيا وحانا أقوانا أكسن وأنواع أيامها الدراسية وحكم ذا أسماء الله الحسنى وأنا أرمها كلية وقفك إلهي سبحانه وتعالى هذا أو أبرن كرايو إنه إلهي سبحانه وتعالى برته هو is الله سبحانه وتعالى إلهي كان يعني سيدو بني آدم كأكرامي سلم إذا مخلوق إلهي أكرامي لما أرق ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر بإله إليه سبحانه وتعالى marka adnagi ilaahay saan noo karaameeyay ma waxaan ku ugu jawaabina ilaahay subhanahu wa ta'ala nagli